1950kii waxaan ku dhashay magaalada Burco dabeed waxaan u guuray berbera ku barbaaray iskuulka ka galay anigoo standard 6 ayaan iskuulkii ka baxay waxaan ku wareegay ciidamada caadi markaan ciidamada ku wareegay adara waxa aan ahaa oo la iga dhigay degmada Kurtuwaare la yiraahdo 76kii xogaya degmo ka bacdi dagaalkii 77kii ayaa ciidamada ku wareegay wakaasanu ka dagaal galay waxaanu galay dagaalkii Itoobiya waxaanu ka galay Goray waa dhaawacmay ka bacdi dhaawacii ka dib hadana dagaalkii baan celiyay mar labaad baan dhaawacmay markii aan dhaawacmay ee aan lay cidlada anigoo halkii Allah ayaa maalin waxa la maalinta la heli doono ayaa waxaan aalay 12 caanama halka anigoo Allah ayaa waxa isoo maray nin barida ku guuranayo ciidamadii oo isla laga tagay ninkii markaanu isku nimi baridu ku hadaafayay wuxuu yiri anigu 6 habeen amba baridaasaan ku hadaafay waxa igu daraa waraabe iimi oo aan oran kari way yur anoo luqadii hadalka aan yaraatay waxaan ku yiri war bal dhagxanii soo ururi ninkii dhaawaca dhabtu ku soo guray dhagxan wii keenay agtaydu dhigay waxba ku fari maayo aroodayga wargeebare isagii abal ciirsi boodi ninkii markii uu iga tagay habeenkii jidku ahaa subaxnimadii baa waxa helay niman orama dabeedna ciidankii Itoobiya hor fadhiya halkii bay haduu sheegi lahaa af Soomaaliga may garanay oo waran lahaa nin tabcaana halka yaal nimankii ninka way qaadeen ciidamadii bay u geeyeen wuxuu waxaan arkay cali baabuur oo halka yaal oo si loo dhinto iyo si kala dhex jooga gariga nool waxa isagii gaar lagu qaaday Soomaaliya la soo qabatiyay halka waxa la soo diray niman 16 nin habeennimadii dhaafa ciida ka baa la yiri inuu hor jooga ninkii natiijadiisii keena 16kii nin waa yar loodeen aroortii iyagoo isla dhaafa ciidankii iyagoo aan gudmin ayaa waxay saleen ciidankii Itoobiya halka nin baa laga dilay ninna waa laga dhaawacay Soomaalidii way noqdeen subaxii habeenkii dambe ayaa waxa la soo diray 40 waxa la yiri 20 ah ku hadheen ciidanka hore 20 ha gudbeen oo ha doonaan cali markii ay 20kii soo dhaafeen ciidankii hore intaanay soo gaadhin ayay baqeen waxay laba cadow dhexdood bay ku jiraa ninkii la maanta ma banoola waana tali waraaba halis ku aadnafla doobu u liiti war laba aabur bay ku jiraa aan noqono waxa ku jira inaan ilmaadeer ahayn oo aan aad isku jeclayn yaa marka 20 ka la socda oo loo jeeray farax bidi wuu diiday anigu noqon maayo bi cali yar ka mooyaane marka saacada aan joogo shahadu way ga khaldan tahay hadalka ma oran karo kelmad dhagixii kuma tuuri karo waraabiyo dhiig baa ga dhamaaday ninkii waxaan arkay isagoo idhaafaya isagoo cali baabuurtii leh yar buu ii jiray haddii isku dhabaanayn karayo ama dhagaxa tuuri karayo uu maqli lahaa intuu ii jiray ilaahay isbakaayad anigu waan arkay isagii ma tusin wuu idhaafay maxaa daba jira ciidankii shalay nimanka laayay ee Soomaalida hor fadhiyay taar bay soo direen ay soo siiyeen qoladii dambe oo ay leeyihiin niman baanu shalay aragnay Soomaaliya ciidana oo na soo dhaafaya iska ilaaliya oo iska qabta gaar koox Sodona ayaa la soo diray oo sarkaali wato oo raaci daba ahaa iga dambeeyay nimankii iyaga oo Sodonkii halkii maraya ayaa waxay baqan yeedhi farxiyo oo lahaa caliyo ninkii soo doora dabeed way u dhaceen in yar markay u jireen iyo ilaahay qum markay qum leeyihiin waa istaag waa maqlaya anigu hadalka intuu ii jiraba ilaahum baa iska tusin dabeed nin buu ahaa shiishahan oo geesiya inay qabtaan bay doonayeen muu yeelin qorigii buu furay ninkii sarkaalka hayay watay halkii ku dilay nin 2000 ugu dhaawacay labada dhulkii markuu dhigay iyo 28 kale waxay ku sameeyeen dalkulmis
halkii bay ku dileen iyadoo aan naftu ka bixin bay waxay fahmeen inuu calidii uu lahaa ay nin meesha yaalla uu ninku doonayo dabeedna iyagoo saf ballaadhana yay soo kala baxeen halkii bay iigu yimaadeen waxaa u daray haddaba markii laygu soo dhici waayey ninkaygaa sorgooska ah ee qorigiina laga qaaday ee Soomaalidu ka qaaday aan u dhiibay hore waxaan sitaare aani jirin iyagoo ka baqaya in ama babasito ama baaskoolad way soo geli waayeen muddo markii ay caynkii ahayd ayaa markii dambe soo dhiiradeen hareeraha iga soo mareen bartii bay igu yimaadeen dabeed waxaan xereeyey qafaskii jahaysta aan ciidanka oo aan sitay iyo isteeladii shawraadkii baanan bi'in mid meeshii baadheen isteeladii markay heleen Soomaalida ayay moodeen darajo waxay ahayd ninkan cali waatii loogu yeedhayey waana dhiig baxay ninku cali samatar iyagoo markaa moodaya oo aan markaa hadalkooda cali samatar uun ka maqlayo ayay go'aan waxay ku gaadheen ninka anqaad halkii baa laga soo qaaday ilaa ninkii bisuul dambaysaan haye iyagoo nimankii sida ayay idul keeneen ninkii faarax aan wali nafti ka bixin iyo labadii nin oo ninkii sarkaalka ahaana dhintay kii kalena weynada gurayo cabaadayo dabeed faarax bay iska yaag dhigeen labadood bay laba naxashay sitaan ku qaadeen ama baleelo ninba sidoo yaqaano Itoobiyaanka ahaa markay taliskoodii geeyeen ayay igu soo noqdeen halkii bay ii yimaadeen faarax halkii intii baqnaayeen ba nafti ka baxday waxa igu daray markay soo noqdeen ninkii meydka ahaa ay sidaa u xafuujiyeen sidii mara la qasaalayo iyagoo markaa naqaska eegaya inuu dhintay ee kale markii dambe inta laad ku dhiftay mid buu yidhi intaa baata uu dhintay moota halkaasay iga qaadeen waxaa lay saaray dhaxashkii indhahana waxay igaga xidheen baadhiis taliskooda markay geeyeen oo adinka ay daweeyeen oo ku shubeen xasharaadkii iyo qudhunkii yaalay ka dhaqeen yay taar direen cabirkiina iga qaadeen waxay la hadleen heer waxa la cali samatar baanu haynaa waana serious hala soo gaadho martii diyaarad baa lagu kari helicopter iyagoo markaa iyagu isle waaba cali samatar oo magacaasi nolosheeda caawiyey xukunkeeda ay ka sugo diyaaradda ay ugu qaadeen heer baa lay geeyey xafiis bay geeyeen la qeyrtu leedahay dhiig bay ka qaadeen waxay ugu daray raggii aanu isleeynay ee dagaalka ku dhacay Itoobiyaanka ahaa dhakhtarkii ay yaaleen baa mid inta laga qaaday oo sariirtiiba laga tuuray yaaniga sariirtii la saaray dabeed dhiig baa lagu rakibay iyo filibooyin waan gubanayaa soo waxaan gubayaa waa dhiig la'aanta iyadoo aan hadalku iga soo baxayn ayaa ninka gaadhka waxa loo bedelayaa 2 saac 2 saac baa dib bedelayaa showdku wuxuu iga sii ilaalinayaa waaba niman kale aanu sakiifno nimanku waana afgaranayni soo inta way maagayana way caayaan markii dambe faraha iga caayeen oo labadii galcoodna ay iga xidhan yihiin seeloontii ayay ashkatoodaro yaayeen ninkan hana la ka qaado hadaan la ka qaadin bartiisaan ku dilayna waxa la geeyay qol laba furaash oo la isku saaray inta la dhigay markaan ku jiray 6 casho aan dhakhtarkii halkii ku jiray ayaa maalintii dambe subaxii ay yiraahdeen waxa tahay operation baa la geliyay anigoo aamirsan aan suuxsanahay wali miirsan yaa magaalada baa Soomaaliya la soo galay aan ku xidhan heer Soomaaliya soo gashay waxa la keenay nin aanu saaxiib ahayn isku ciidan ahayn oo aanu kaftan jiray oo maxamed bare cali loo dhigay ninka lug baa soo go'day qolka horana lay qolkii dambe ayaa la dhigay isagu ninka dadan buu uu arkayay meesha jiifa laakiin geeri waa wihayst qolka dambe markii isla la dhigay oo aan albaab lahayn ayaa markaan miisay baan xawaashigii gaarkayga ay la hadlo waxaan idhi waryaa iikeen waxaan ku kaajo ilaa afkaran ya maahe isagu halkiisii iska taagan yaa ninka hadalkaygii gartay aan saaxiibka ha jiray ninku markii dhulku xoroobay oo abahay yimi furinta iyo ciidankii u yimi ayaa lagu qanciyay lafihii faarax ninkii soo dooray way faarax inama kale jiray dabeed lafihiisii aniga leemoodaya la aasay
ninkan anna raggi waxiga aasay buu markaa ka mid ahaa ninkii wuxuu yidhi war waa kuba ninka hadlaya nin aan mooday buu yahay waa kuwa baa nidhi kaad mooday cali buu waa la odhan jiray baaniya maxaad ahay ninkii intaanu ii jawaabin ayuu ninkii ooyey war maxaa ku helay baan yookaasi miyaadhi ma aakhira jira cali sootaan asnay maaha waa meeniga kula hadlaya waa cali nin dhibaatada ugu horeeyo soo maray baan haye inuu jaawareysay yahay ma fahmi waxa dhig Muxyidiin waa cali maxaa ifki jiray aakhira joogay wuxuu igu yiri oo igu jawaabay de waa dhibaato abahaara waa noo yimaado wada waanu ku asna waxaan anigu waxaan jiifaa qolka halka waa jannadii halkaana waxa jooga qolka kale waa qolka baraamraha ee la soo maraa bal iska aamuso waxa ku iman doona malaa'ig haddaad afkaran weydo ana ka turjumaya iyad ninkii run buu qaatay run ahaantii dhanna ka dawaqsan yahay waxa markaa u shaqaynayay ruush Itoobiyaanka waxa soo galay niman cadaan oo ruusha markaa Muxyidiin wuxuu moogay waxaan ugu jawaabay waliba ku ilin inanka haddii aad afkaran weydo ana ka turjumi ninkii markaa u yimaadeen ayuu Muxyidiin afkaran waayay dabeedna cali buu yidhi waa lay qaado wali ageeyay wax fiican ba weydiin abadu goorbay kugu dhacday miya wax iraaba qaadatay iyo wax dawaa waxa kaas la wada khaatire weydiiyay intii markaan ugu turjumay yaa dal ku sociyay halkii ana warkayga Allah la qaaday dabeedna waa markaa arsaba la geliya ka soo sheekariyay arsaba markii halkaan la geeyay anagoo ku jira keel ku jira ayaa nimanka Itoobiya noo yimaadeen waxay hadallaan idinka duubaynaa dadkiinu sidoo idin dhageysto ayaan doonaynaa ciidamada Soomaaliya ataan anaba waa nool waana la hayaa isdhiiba waxaan idhi anagu nin furin jooga oo xoriyad joogana hadaa aanu raahno isdhiibna deeyeliba maayo anana in xabadna la ku hayo oo hada kale yeedha oo dhalka si deelaya buu qaadanaya maxaan saliyaha anaga geeriya nool midna badin labadayadii nin dhakhtar baa la geeyay arsaba waa tahay markii halkiina la geeyay dhakhtarkii ayaa laba meelood oo boogaha laga dhayo dhabarada ayaa kala geeyay ninkii askariga ahaa iyo turjubaankii waxay keeneen niman dhowraan wada naag dhay baa la yiri show naagta waxay la leeysan dadkoodii baa la laayay yada nabarkayga dhayba intay faashadii ka qaaday iyo faashad cusub saarta la saar ii dhaybaan idhi walaaladayba la sabay tiriyo ragayga maxaan ku dheeyay naagti candhuuf baa ku tufay anigoo xanaaqsan nolol markaa ba rabo dabeedna waa la soo qaaday naxash baa lagu soo qaaday awalba gaariga lagu saarayay anoo gaarigii actifa saaxiibkayna aanu wali imanoo maqayahay ayaa waxa ii yimi nin gaari curyaan wata ninku labada lugood baa go'an dabeedna show ninku waa Soomaali anuu ogaadeen reer Cabdillaah waryaadii uu yiri aan madaxa qaaday ayaa idhi wuxuu igu horeysay ma Soomaali baata baan idhi ma Soomaali siyaad baraatay bi waray Soomaali siyaad baramiya Soomaali baana maciidan baatahay waxa laga qabtado goray diintaada iyo diinta abaha waxa ku sameeyay iyo diinta siyaad raba marka waxaan u qaataynaa inuu yahay nin Itoobiyaan oo afka Soomaaliga yaqaana ana intii ugu yiri leeg baan waxaan awal xaadiriyay waxaan diintaada iyo magista xaleemayra waxa ku sameeyay inta markay kala gaadhay caaydi ayuu jeebka gacanta galiyo beersan gacanta ugu jirtay oo faahitay wuxuu ku soo tuura markay dhaaftay boorsadii ayuu soo gaadhay ciyaankiisa igu soo weeraraya ana aan baridii ku guguuranayo ya labadayadina Soomaaliya ahaa ay iska hayay meesha isweerara oo laba dawladood kala madaxa intaan isla gelin oo xabashidii qosol u dhibatay oo kuwiina waday walla surwaalkii iyagoo gashan isku kaaceen ayaa markaa madaxa isla geli lahayn yeedina gaarigii dib ku jiideen ana dib lay soo qaado waxa ku soo celiyay waarkii baa la dhiga ninkii waa isciikaabiyo Soomaaliba ku soo baxday wuxuu yiri war nimanka adaan u warhamin nasiib daro ayaa la qaaday laakiin waxa wanaagsan lahayd adaan warata nimanka yaa ku tusa dhakhtarkii baana la dhigay
qolkuu joogay qolkii xigay baa nala dhiga waxaa naloo kale dhig kaloo maxbuus ah oo Itoobiya ah saddexdaas irood baan qolka ku naalaa ninkii wadooyada wuxuu yidhi niman yahow waxaan idinla dagaalamay burwakhadara Krista Soomaalidu markay soo gashay wuxuu yidhi walaalkay way dishay xoolahaygana way dhacdo dhibaatadaas iyo waraaqdaas ay timi idina marka taa ciidamadii Soomaaliya nahay baa xanaaq iga keenay marka dambana way isciilkaambiyay raalli iga ahada waxaan interkaya way tiraya wana idinka turjumaanaya okay ninkii runtii waxyaabo way buu taray oo Soomaalinimo markii dambe waa yahay halka dhakhtarkii anagu ku jira ayaa laga baxay wadankii markii dalkii laga baxay oo ay ka baxday Soomaalidii yaa leeynimaka herar lagu celiyay diyaarad baa nala soo saaray arda sabaana la keenay waxaana la keenay herar bas baa nala soo saaray markaa waxaanu haysaa haruu sheegay 17 keeni Soomaali kale ma hayno askara markii aanan herar ku soo dhaweyn ayaa wada laamiga ka baydha ayaa nala ku leexiyay waxay lageeyeen guri daara oo sidii iskuul dhisan oo kuraasi leh todobana wax sideedna waxay lahayd safka hore afariisato sideedna iska kay horjeediyay halkii anagoo labada saf kala ah oo iska horjeedna ayay meela taabteen albaabkii bay xidheen kuraasidii aanu ku fadhinay buushka ahaa ayaa dab yeeshay ku leeyay anagoo le war ku ka ilaahaya waa maxay oo iyagina dabada nooga baxeen ayaa waxay taabteen mooyaane waxaanu aragnay anagoo hawada isku dhaafayna ilaa kursiga kow marka laga bilaabo ilaa 304 way ku dhamaanaysay inta kursi baa soo waliba wareeg ku sameynaya hawadaanu isku dhaafnay markii ay dhamaatay intii kursi ee aanu korantadu waday aanu dhamaynay ay xagga dambe waxaan raacay aqalkii isbalaqay markii aqalkii isbalaqay waxaanu ku daadanay meel yar ciid wanaagsan leh anagoo aad moodo askar istirsoon wanaagsan oo loo dhowr jiifta oo nin ka dheerayn ayaanu saf gudboon u dhacna nin waliba leenka kale arkayaaye arab ka nin waliba la daadinaya daba ciid bay naga tumeen waxayna siiyeen laba keenin oo dawaqaada ah iyo habad kooka ah soo meesha aad garoonba ah dhul ah ayaa ku yaala halkana waxa jooga rag badnayno sodoneeya yaa fadhiya beel halkana waxa ka muuqata waa beel ay tag moodo taboolay ku xidhay ku safayin soo taboolay waxa ku qoran laba mari karo dabeed beeshii bay fureen oo birbaasi ay isla u kala maroojiyeen dhulkiiba waa kala carro godkii bay lagu gureen halka waxaan ugu tagnay nimankii Soomaalida ahaa ee la qabtay ka baxaydii nimankaas noo sheegay in sidii loogu jiray wadanka ruus soo galay dabeedna laga baxay annagana badankayaga lagu soo qabtay adagoo si socda jidka ciidamada waxa sii deelay waliba ruushka oo ma ogolaan ka baxay in la qabtay inta yar qarsoodi baan ku kaayay ruushka ka qaranayo bayraad marka 946 ka ragii hore ahaa ee 77 ka ahaa 946 ka nin aanu ku ahayn la qabtay 77 waa la qalay waxaanu kaga badbaadeen 230 waxaana la isu kala cisi hilibkii walaalkayo halka markii aanu joognay oo halka ay noo marayso ayaa meeshiina la ka saaray muddo guriyana la geeyay waxa ragayagii halka joogay annagoo laba saf ay naga dhigeen qolo dambe oo meel gooniya ku hayeen na qol geeyeen anana 17 ka hayeen hore ay qol gooniya geeyeen oo ay markaa ku xisaabtamayaan nimanka hore ee la qabtay wala tusi karaa unity list oo waayo dagaalkii hore lagu qabtay nimankan si ka baxaydii baa la qabtay sharcigu waa sii day karaa ee nimanka kala xasayno ay leeyihiin oo laba meelood ku kala xidhanahay iyo halka dhakeereen meeshu dayr ma lahayn garabtii dambe ayaa waxa anagoo nolol ku nool oo ay 3 casho mar ahaan noo keenaan
laba xabo dhoobi aba furina ay nasiyaan oo aan shaah lahayn cunto kale lahayn oo halka aan iskaga noolahay silic ayaa habeenkii dambe waxaan maqlay rasaas ka dhacaysa magaaladii aan ku xidhay Herar magaalada meel ka dheer aan ku xidhanahay waxaan la hadlay ninkii meesha haystay waxaan waa maxay badaafiic la dhacaysa wuxuu yiri waa ciidii islaamka waa Ramadaan baa dhamaatay marka waa loo dabaaldegaya dawladda u tirsan badaafiicda waxaan ilaahay iga yeelisay waxaanu nahay muslim inaanu tukanaanu doonaynaa ee ma nooga shahay maxaan idinka helayaa buu ilaahay baan ku baryaynaa inuu jannadii ku geeyaan janno ma baahniya waxaan ma helayaa buu ilaahay ii weydiinaysaa darajo inaan helo haa baan idhi oo kuma qayaa buu yiri haa baan masaxaysaa buu yiri hadii la waayo dhibaatada ku hesha haa baan idhi ilaah baa iga hadinaya wiiga saxay dabeedna wuxuu yiri soo baxa toddobaadkayga wuxuu yiri bayda markuu baayoyada geeyay meel ay ku badhaan iska toodo aan meeranay ayuu ciidankii yiri ha tukadeena idinku ilaaliya ciidankii kale oo ilaalinaya ayaa waxaanu aragnay ragii kale oo ka furay albaabkii oo yara meeranaya uu nooyiba wuxuu yiri caliyow nimanka saaxiibadiina lama ogola inay is aragtaan laakiin way dib tukanayaan wax wada hadal ma jirayaan gadaal bay marayaan xagga dambe safka dambe idina xagga horaad maraysaan wada tukada mana wada hadli kartaan way heebaan toddobaadkii nin baan wariyahay inay tujinayo salaada inaga saaraya anigu markaa u diyaara inaan tukano anigu wayga fursad weyday markaan ahayn 17 nin arigiiba waxaan u diyaar garoobay inaan tujo anigu wadaadkii tujinayay 16 kalena fadhiyaan safkii hore ayay nimankii soo wareegeen ilmaba eegi kareen markuu gadaal mareen ayaa nimankii kalena istaageen salaadii baa markaa sani bilaaba halkii ay salaadu ka bilaabmay lahayd baa markaa nawatu usalli marayay yaa go'aan gaadho waxaan wariyahay iswaraysta dinu soo qodoto mooyaan jaanis kan isku waraysta salaada halka markay maraysay baa nawatu salli ragcatayn ciid al-fajrati mu'akkadati warwaxanu nahay anagu 17 mu'akkadati ma'muman intaasi waxa weeye ururka waa guutada waa urinta intaasina waa guutada waa ururka waa urinta intaasina waa saaq intaasina waa darood intaasina waxa weeye Allahu akbar nimankii Allah salaadu bala qabsa Allahu akbar bayraad sidii aan ugu tujinayay yaanu 17 keegeenin warbixintoodii aan dhameeyay anoo ku dhameeyay markaa salaada matalaada ah markii aan dhameeyay nimankii go'aan islamaan ogeyn ismana gaari karee ayaa waxaan u fikiray sidii aan u heli lahayn nimankan kale warkooda dabadna waan helay يلا وحنا بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وأن ولا مركز سوس انتهي نك كهرية وربحين هذا وسوديب الله أكبر تبع سجود دي بكره شيء وربنيك كأدنى أي وربحين هذا كسي مركز وربحين كلا قاضنا كلا دم سناي اللي سنية فرطنا كلا جران ما نك ما كان تبيان كيه الظهر مرة يسوع أنا وركي كلا دم سناي كانوا صادي سيدي وحكة بحي أنا كبحنا بركانوا كبحنا بشوحة كتيراني أفصباء أفدن أفحبش جاي قانا فضلا طبق تبديك بتقول محمد استرجامي إجا ترتبان على واحد تاسلا دوا تكتين وأنا نبلاني درجة هدي أوايو وحيد عارف شقق بلي وحي إلهي غير سوى بالفاتحة إمرأ إن إلهي إجا سوى أسطره ونكل حريي هبين كانوا أصلفيت كذا قول بحيا أيوم مركو تجي له حدري dadku marka waxaan u sheegayaa markuu isku calool yahay islaam yahay walaal yahay dibay yahay in laga aqbalayo wax Ilaahay wadiistaa waan u aragno waanu aragna fiidka anigoo soo kula baxaya buu yimi isagoo furin ama dhaabo jawaana sida iyo sticks gaara ali markaas uu yiri daaqada fura daaqadu furay Ilaahay iyo sabal wa saaxiibi
درجتنا والهلا الباب كفر بيري راشق وحلا سي جوان كي فركاها يا سيجاركي بربر فوق بدر قلده كلوغي ونugu soo noqdo wuxuu barit waxaan ay qalayaa ari iyo jaad wada maxsuumaya wada maxsuumay albaabkii uu noo furay ninkii adaba wuxuu keenay inuu waliga bayda darajay qor mudayar markii ay joognay biyo wuxuu cali leela falib dayq iskaabir weydii ilaahay darajada bay hadii la waayo oo darajadaasi de suurtay weydana halis baa ku jira war iga daabaalidi adigu markuu dhikii ila culoobay ayay saaxiibaday war faataxadeedii baynu bari doonaa ilaahay baynu bariye iska war keebaalidi buug iyo warqad iyo dun wuu keenay lacag keebaalidi 600 oo bira oo yare la gubayo baan gaadhu ka gubayna nafbaan noo furban u dirayna marba wuu keenay waraaqdii baan si qaraasay qoray على على ستك باني الا يهديك 1000 مره نعد لها كوغو سو دغت ku jeer walaay ku dileey waan la laabay haybaan iyo bikita degin waraaqda dabacada cashana todobada dhagaxtu hana maydhan todobada casho hana cadeen waxa helaysaa baan idhi 2 bilood oo habeela baan u qabta xabadu xula ayaan gidaarka ku qoraa 1 iyo 2 iyo 3 tirina يلا وحي كريم معاويس ير iyo oo ilaahay ku ku seexo gabadha casay labis ya garan ee dharka la ibo gorotuuti baan qaba wuxuu cali doon mid kale waxaan ku uri ta kale waxay ku xidhan tahay shuruud ba ilaahay shuruudda ku xidhan tahay waa adoo muslima iyo inaad halka ku kala joogno joog laba jeer buu dabca dabeed wuxuu yiri lacag igu bedel ma dhacay sabaan yiri oo ilaahay ma aqbalino ma yeelayo iska wadbuy ninkii waxa ka horeeya marka hore tibirta waxbarasho iyo shuruud go kristada uu gooyay ku kaadi uu ku kaajay waxaanu baray shahaadadii markuu shahaatay xeedaankii soo galay baanu nidhi waad helaysaa darajada waxaad ku qabsanaysaa madaxdaba migisti oo baashba adaa qabsanaya laakiin cidi ma sheegi kartid been idin sheegi maayo ilaah baa iga hadlinaya maalintii ku sadxahay maalintuu muslimay baa darajadii la siiyey naagtii baa su'aashay hadaba hadal وقوي واحد يور مدة أن قاعدين 4 بلود يا صدح جرد العلا تقال لما تقولوا كمان طالعين درجة حاجات كاش نولي يا هلك تشوجا يا هو ذا الله يا رسالة قدام محابس تكملة إلهي بو إله الله واران مسلمي وحنو يقول لي بيستوى في قبسة الدولة ومسلمي هذا عندنا هالشيء ناكتوا في شو قايل سي نكى markii muslimadii si loo ogaaday baa loo yeeray waxa la baada muslimo diinta ka baxay ninku marka waa raaska migistay marka waa kornayl darajadiisa ay tagtay kabtan buu ahaa 3 jeerna wuu dalacay waxa weey waa kornayl waa tahay waa loo yeeray bada diinta ka baxay baa leeyahay haabu ka soo tashaalay 3 jeer baa sharciga in la weydiiyo oo ima wuxuu yiri war sidaas ay ku dhacday adkaysa baan iyo ku adkayso oo ku adkaystay 3 jeerba marba muddo soo qabteeno ninkii waxa la darajada la wad dhigaysaa waana la xidha waxa loo soo bedelay mid kale ba oo laba xidig la anaadkii iyo balaayadii buu nala galay ninkaanu halkii isku baranayna meel kale kaxee anoo halkii aadu joogno ayaa ninkii wuxuu xidhnaa wax yar gamal dabal siiday soo muslim salaada tukada ninkii markuu jeerkii ka soo baxo dhaxda marayo ayaa wuxuu yiri meel gaari ka dhaqaaqay ayaan boorso yar oo lacagta ku arka kayra waxa ku jira $4 kuna soo dadka soo degayay meesha bari jiray
malaa ka dhacda ninkii guri buu tegey xaafad Soomaalidu leedahay gurigu ka kiraystay Solomon buu la baxay ninkii wuxuu tiray aad u jeclaaday sidii aan isku arki lahayn meeshana ma iman karo ninkii lagu bedelay buu suuqa ka eegtay ninkii bay saleen wuxuu ninka ii keen arrimaha hawshiina ugu sheekeeyay adoo kugu balabanaya soo wax kula qabto ninkii baa ii yimi wuxuu yiri Ali waanu saragnay saaxiibka waana ii warramay waana ku geynayaa hadda brito dhakhtar haan baan kugu qaadayaa isxanuuji صبحي بان تاهي أولي إجريس تصبرات مريت تودقاتشو وحنا هاي نين دعايو لقتي باي حنونيسا حكيم بيت فلي قال لي دكتور هاي لقي قال لي سبي يقول قاضي داقله أضلعي قول لي سبي يجي وحنا تجديك النور يا خميس كشن سوتشودي كل شيء وتجي بقى سوتشودي كجدكتي حافظ الإسلام كبركة سلام والله بحوت تقانا ninkii xaafadu tagay laxnaaga dawacday hilbaahi inay soo iibsatay ayuu macaashay laxdii buu yiri war gowrac xaafad buu yiri kariya taad buu idray halka adagoo fadhida ayaa inantii beerka noo keentay waa Soomaaliyeed soo waxaaba dhashay inan islaaniya iyo tukrigi ku ogaa meesha waana noqonba markay ilatii haybsatay الهيبتي إسلامته هي ده نقضي إسلامته وشيكته إسلامته بقيت بيه وحجرتي وذي أوجي ده بجرته أدوجو نكى بيقبل بيجي نكى وحلقة بيجري وفي كمان تقنا وصاحب دوتي نكى وحول درجة دي إبرو درجة دي بدي كرهتي مركو حلاي وأولي هي وادي حاسين يسابوا ده وين أفته يعني نك مثل بعض حدا ضل دونته هذا ده دباطه تيلا بعد بيدو والله إحنا ورناك إلى هاي ديدي زباد قايد سوي جرانيك وجرح هذا وحيروق جرح يقولي اطلع ذكي إلى لنا يي بعض صاحبني نقول أكسبها زباد كثيرات بيقول حري قول سكتورة وحري وحري عليو ده سد هالكات على ده إسكاك هذه وحنا ندور يا خمري واحد ما أنت لا أدي ويقلنا ينعيد كيجي أنا خمري ما ندورنا يا سيتو ننكي إنتم بقنا يا كثيرة دي يقول راستا قعنتها أنت أمع معي يتكلم يقول راستا تبعد قوتها كتالي أو ذكر هات تارك بريهي ينتاركي الكاكو قبتي ويرفيقي سبريكا هو سئ كثيرة درسكلي يدوّد شيء دوّد بحضر وفراتار مركي كثيرة دقيقة فراتي يعني الباب كي انت فريق هراتي وسكتورة قرية دبا وسكت العاد لا تكد برواس بالغيبة مركي هذا ويقول بغلب بدي واحد مكي الباب كي تبي وردا وعاتها وبس عكرتي بس كحلو الدرف معها أو لوكي كلا جرميسيد نمكي اسكت درتي ورما حد يشاه أنا جو سيليكو كادي ده سدي بيش تالي أكو كاشي كري يا شو كادو ما واحد كوس عطاسي بركة ده سد ما كوبايو وادرتو أي كشي جو بشيبه واحد كعيلة كيس ريال يو خمريسان أو أردية سيلا رباب كان اسكت تاجي بير عباري تاجي هريسة إلى حاجة هريسة وإلى لما بقول طلاب بير تاخد قالوا أنت أول حساب دان لا يعرق وبتبادي كراه وان اسطوري بسم الله الرحمن الرحيم توكل على الله وكفى بالله وكيلا بانيدي وانا شهادتي دبدور الصورة أنا أسلم الرقية أيوة وحن قال بيرتي مركان استاجي ويقنص أنت درك قبطه شو بيرتي لو وديعته ما قال لك قرر بركة حلنا قال بحسن لهانا وكو أدتها بيرتي وانا حقاضي وان صعودي ما وحن كتير ساعد لك قياسي ما هذا ما نصيب درتها هاي وحن ستاد دريس كسوماليا طوطي هدان طور لها طوطها أو إسقاون لها
oo nin waalan iska dhigi lahaa iyagu Itoobiya ninka waalan way qabtaan waayo iyaga basaas u dirta dadka waalan ninkooda waalan calaamad buu leeyahay shaambada ku taal oo ibn maraada waa nin waalan haddii shaambada la waayo waa la iscon mayso dabadna maryahiga iska diistay goorta aan baxay waxay ahayd ilaa kowdii baa ku qiyaasay saacad masidan waxaan meel saxara cidla ah ayaan u baxay sidii nin duulaya oo kale ayaan u socday waxaan galaystay habeenkiiba waxaan galay buurale habeenkii buurti baa ku jiray 12 habeenkii waagu markuu bariyay may ha waxa gabalka habeenka dhan guuran aha waagu markuu bariyay ayaan buurale galay habeenkii dambaan ka baxay marka habeenkiina waa soconayaa maalintiina waxaan dhuumanayaa diyaaradaha dul socda leeyahay sawir wada oo doonaya Itoobiya marka waxay tii Soomaaliya kama hayno ciidan sida barraa wuxuu leeyahay ciidanka Itoobiya waan haya ciidanka ka jawaabo migista xala bari marka wuxuu halka laga baqayaa inaan gudbo oo hadhow ay ku fashilmato Itoobiya haddii Soomaaliya u nabad tago sida daraadeed ba aad lay doonaya ciidankiina waxa haysta ciidan koofi casa ya dusha ka haysta migista wuxuu yiraahdaa haddii cali la waayo gobolkaba waa la waayay siyaad barraana mishinka ka dambeeyay aad baa lay doonaya hadal yaan kugu daalin markaan marayay shan habeen iyo shan maalmood ya habeenkii lixaad oo guureynaya ayaa waxaan ku soo baxay finaalkii u dambeeyay ciidanka Itoobiya soo ciidankii Soomaaliya way sar fadhiyaan habeenkii halkaas ku arbushaan markii aan dhageystay ee hadalkoodii gartay Itoobiya yihiin yaan dib u baxay waxaan sidii xagga ka wareeg dhinaca kale ka wareegay bidixda gaga adeeray anigoo halkii soconayo isla wareeg ayaa waxaan galay beerta waxaa jooga nin ciidanka ka tirsan oo saddex aliflaa wuxuu istaaba hal bacha la yiraahdo jaad buu gurayaa ciidanku soo dirtay waana baqaya oo ka baqaya ciidanka Soomaaliya inuu meesha ka afduubo dirayskii Itoobiya waa sitaa ya saddex alif loo xidhay dabadkii markaan isku soo baxnay YouTube buu soo igu shiday dabad wuu naxay ana waan naxay markuu isla dirayska arkay inuu Soomaaliya yahay annakiisi arkay dabad farmay gula hadlay abo si dhiftay bii xagaad ka timi afqotaga mawqon dabad waxaan ahmaariya tijlaale ma taqana xawshiga بدم تشيل على عاد بانو قانبوي قد يا صاحب حقات كتبي waxaan isii daabiya ka badaa tuulada aan ka imi haddaan sheegan lahaa alafki waan garan balahaaye ciidan Itoobiya ana jarajaradii garan maayo ciidan haddii aan sheegan lahaa shibila iyo dagaana balabaad iyo waxba jiro kaana jama hayo meeshan maray hadii wadii xitaa baaran gareen magaciida dabadlinkii xaqaad ka timi buu yiri magaalada aan ka ibaray tuulada xaqaad socotaa buu ya tiraale xaqan horaan u socdaa baan yiri ninkii yaabiye wuxuu wali kara wanani Itoobiya dilay islaamku sita Soomaalida ciidanka xana way ku dhow yahay saad yeesha wuxuu dabcay ninkii inuu celiyo wuxuu meeshu oodanta wada male saaxiib soo laabo xaqan u soo laabo wuxuu ciidankii soo arkay ee uu ka tirsanaa ayuu dabcay xaqiisii inuu celiyo ilaa soo arkay baan haye waxaan sima saaxiib anigu waxaan Itoobiyana كزاري بدم ضده وان عبسنا هي نفاسه جلات تجبت يسوراجو وان عبسنا هي دبي هو انا ودعيسا وان كدافيا ني توبيا هي بناي نينكي هذا وحي غديا صاحب ودا ما جيت سو لابو markii aan iskari weynay ayuu ninku wuxuu tirigalay bal inuu ibatiyo dabay wuxuu hanjabay iyo cays uu ka darayay wuxuu yiri sima wariya suuga nagarta sabajoog doogaha gumad doolano hada kaba maqan miyaan ku gaadimayna maanta oo dhan hooyada wasay sooday intii soo laabana kuleena dabeed waxaan wariyo nin baatina ninka ka cabsan markaas aan sima anta suuga nagarta sabajoog aduu doogaha gumad doolano hada kaba maqan haabu hooyada wasay iyo sadalay intii laada aban
ما دبي وطات الصومالي بان عسكر الصوماليات بان هلطي أنا قرب بضا طيب بضا لي هدي هذا يبضا حبض باي بنسا شيء كان عنك شيء مستر باي بجرا نكي له يروح ويقول لي أنا عيدا كنا كايمي أفطوبنا هاي بس كل دست لك هو شريه وقربضي جيت أقول يا صاحب جيت تريه يا قرت شوي خالق هو كوج فيه ما كان كذي كيرو بقي بوحنوه رئيسي إسقاط مرتا ترو أرد سيف تنو كذي مركو دقي بالي تبلس دبوا لابو فريسو هو فريستي سيف تبى قاطي وحان سيدي قرتك جول لبدا قطعوا ضسيج حسبه لأن نفس كلام هاي سيدي مركان سيفتي دول قبطي وإيش سيد عليه هاي بان وبهرتني كأنه مثل هاي إنه قال هاي إسكا كترول ما مالس هاي بانو دين تلوا بحيوان لي ملك الإسلام بي ترى ملك الإسلام باني كل واقع على وضع إسلامك وأشهاتي ويجحرت اللي يدلكوا دي دلكيسي لينكي فريسة باني لي لبدا قرب بانك كلاروجي طوطة وقع سيفتي لبوا هايستا رد بكر لا الصومالي ترو إلى عيدمada Soomaaliya sootiisa baan show ciidamada tooskaas aan ugu soconayay dhinaca soo kale iga xiyaa ninku wuxuu mooday ciidanka aan garanayo oo dakay dadkii ciidanka Soomaaliyeed ila qabta abaar ninki barku siday oo ila hangalaynayo ayaa waxa iska tusoo dayixii maamka ahaa markii hore aan ku soconayay ayaa gees kale ila noqday qaasi ninku waa ku xiriyo Itoobiya ku xiriyo وأنا وردايحي هرتين لها محق ذا البريي إسكا أنا شقي كجراش في الربيع إسكا برديق أنا قم إلهي بنا بصدق حمد روركا إلهي دي ويدي بس كحد لو يوري أكتوبركا خون باب بحرية بس كحد وش بالبالي فريسو وفريستي مركوب فريستي برتي أو نصانيو أيام وريرة waxaan arkay ninkii abadu galo leeyahay waxaan hayaa askari Soomaaliyeed baraha toddobaad ka walaay qabtay oo ninkii madamcaydu soo boodo oo ay qabto ayaa maskaxdii lafistay tada hada kiyadu badalo waxaan idhi fadhiiso kornay Soomaaliyeed ahaa dagaalka la igu qabtay tabeed waxay soo daayay dhiman idin ka mid ah waxay ilaahay Soomaaliya hadda tagto waanu ka daawaynaa baaskoolada iyaga soo siiyay واحد وانتظر كوك وانا إنه إلى الصومالي ويقولي وحن هاي أنا ونين توبيانا ورماء صدقني بانو هكا كنت وقنا يحيي كلام القرية توبيان كهاي ورمضها وحلا قبسي الجرية يدقالك مركا أنا قوي أنا كره السنة يوم أنا وجهي لكن وحلا دي لي حاس في عروتي صومالي وحي ربي كوتي تا يسيده أما آخره دتك الله يريد قب دبجيس لكن وان داريي إلى وكيل إسلام كي شاكتاه بس يدعي سيريبو ستوير ما كوي قدر قوة فوفي لكن يأي ساكسدين قدودو دوا كوري بعدين وحي نبه هكا يوقف طوي فاصلات بو يوقفتي تبعنا القائد بو يجري بيوحو كسيغي هدبا اللي يسيدو كسيو دايبا لوراني هاي انت الطوري باكا صوت بحيبي نكونا ندعوها ما ديرينين إن بكرة دوي هاي لذلك هلا قطع رود لا يبي تورين دوك درار بو دقضي وحلا يحب مدافع ستبي أجي سبارة أي حاجة كنت هاي Soomaali la soo jawaabtay halka muddo laba saac ku dhow ay hubku tiradoodu dhacay anigu aag badashay aagii jaadi aan ciidamadu ku beegnaayeen waan ka baydhay meel ka gudubsan baan galay meel yaro beer xuna geed ah tabeed barkii dagaalkii joogsaday baa laga dhulku hulcay ninkii waa nin ciidana oo aag badala kara labada koodhar aan marro niman toddoba oo ay wata ay daba socdo ayaa soo maray geedkii iyo beertii ku jiray nimankii markay ay dhaafeen aygu waa ka dambeeyaa darajuu xidhan yahay waa isbitoore shaabal baashi ayuu aygu sitaa ay waliba intuu uu shaqeeyey ayaa darajada la siiyaa dabeed markii nimankii dhaafeen baa aygiiga dulciyey nimankii waa soo noqdeen afti waa lagu qabtay waxaa la geeyey meeshoodii nin meel bibata ahoo ku qaylayo oo marka shaabal gaashaale ayaa la geeyey
وحي بالدقن ارتقى سوق بيسو شاري معويس بو يديبي شاد لا سوق بو يدي عانا الله آد وابيسي الله بابيسي halkii markii aan fariistay baan hadalkooda waxaan leeyahay shaaliqe waxaan ku weydiisanayaa ka codsanayaa inagoo iswareysan doona in badan jaad baan cunine in muddo ilaa aan marqaamo aan lay wareysan hada kale iga xidho waayahay buu yiri anigoo markaa wixii isku hagaajisanaya aan ku hadli lahaa inuu iga qorayay aan isla isku hagaajiso anigoo halkii fadhiyo ku qaylaya ayaa ninkii muslimnimada ku soo daayay oo faanayo oo ciidankiisii saru qaadaya yimi ani aan basaro shan faalobi ninkii libaaxay ka reeyay waaniga bi yaabad ninkii muslimnimada ku soo daayay waxaan bafidro caynata telegram ahuna telegram bariga hore anigu adoo kale hada jireemka ku hadli maayo araska tag khalqii baa dhigay kan ila hadin dabada hawba xabiyo araska tag buu yiri shaali qabaani waxa inagana soo wareysan marka dilayskayga aragto waxaad iga soo qaadaa inaan hayno cadawba oo laba dawlado oo aynu kala dhahay iskuulida sida daraadeed ninka kan waxaan su'aashana ana xidhay waxaan ku su'aalayaa su'aal ninkan ana soo daayay waxaan ku soo daayay masarkaas ku afduuba in maxbuusana waa ahaa soo baxsaday ninkan masarka ku afduubay muslimnimada ku soo daayay ee yiri saddexno muslimiin ku joognaa xerada darajadan ma waxa loo siiyay qabyaalad oo been buu sheegay miisa isku qolay xiliya iyo geesinimo kuma qaadan halkaas ka amrasadaan ka amrayo wixii aan awood leeyahay sharci ayaa talaabo ka qaadi haban ninkii wuxuu yiri niman xoog leh shig baa loo xidhay halkan ka cabaadaya leeyahay waxa la geeyay subaxii markii waa gubariyay in man ugu daray fartana magaala la geeyay tabeedna magaaladii baa ariishka ay dhaaf fadhiiso magaalada galeelo dadku waa warhabeen waxay min Soomaaliya odaya ninkii odaga wuxuu afka ku hadlaysan oo dhashay baan hay idahana ka tabaalaysan marka hore warkaaga waa ka dhigaysaa nimanka ay waramay inaad ka noolaato ka sheekaysan oo laga yaabaa haddaad dhibatana raganimaad ku dhibatay ilaahaga aqoonsano magaalada waxa beera ana leh iyo dhaqaale iyo guryo dadka aan dhalay ee meesha degayna 100 qof bay gaaraan dadkii intuu soo galay magaalada waxaan ku tari karayaa ku tarayaa laxbu iibiyay iga gaarsiiyay buu yiri beertu golaashaad buu keenay iyo caano isla markiiba heedo hilibku ii keenay oo soo gaday waska Soomaaliya kale taar baa ninkii diray Itoobiyaanka ahaa diyaarad baa tigi Itoobiya oo dhan wada baqaysa wixii madaxa ahaa ee markaa magaalada deganaa aan ka baxsaday diyaaradu ay ugu qaadeen waxayna cali de waxaanu ka codsanaynaa raganimo sameysay in yar baana ku harsan lagu qabay haddaba waxaanu ka codsanaynaa de wixii dambiga lahaa mooyaane inaad cid kale sheegin inkii wuxuu siiyay 600 oo bir konton bir waxaan siistay furin iyo xalwad baan ii soo sii dabeedna anoo saad ka dhigaya iksibira hilib kala qaad ii soo shiil baan dhiri bacbaa ku siitaa diyaaradda waxyigii baa la raacay meesha dilka leeyay migiste markii la soo qabay baa dhiri anigu migiste nimaan ahayn la hadlo maayo magaalada waa wada dambiile migiste wixii ana ciidan soo diraya wax ka qora in la hadli karaa ma jiro nimankii waxaan wajalay 13 laba alflu hooseeyo dabeed ilaahay yagii waa dafirayaan kiiska waxa dhacday nin baash adiis la yiraahdo ayaa markii ugu horeysay la soo saaray markii aniga la wareystay la cali wuxuu yiri lacagta iyaga ay siiyay saafta iyo waxaan raashin kale iyaga ay siiyay waa ka dababanayna bay yiraahdeen arinta maxaa ka jirta wiila ambiiqo anigu farban mooyaan af aqaan ma jiro xalida farban ma yaqaan sida baan isku wareysan karaa waana loo yeeray ninkii waxaan idhi loo kala turjuba annaga safkara doonay baadina laba nin baynu nahay oo ciidana oo laba dawladood kala ah dawladda Itoobiya in dawladda asaac siyaasad ida ku sameeynaanu dabacnay raga mishirka ama waa ka dhicisoba ama waa fulaa
على الأذيك أبو على الأذيك يا سياسة أفريقيا ما كلها طلعنا واحد كلو عن شيء يا باش هذه حبش يقول يقانا كاسان اسكو أفكارنا إنه يقانا محابيس ما يقمرها إياه إذا كيسي والله درباحه له هنشبي تبى دور قابيل إلى هاي وحكيرسي ميدان أنت صدق طبعاً إننا هاين ميدان كوبية طبعاً لبان كرهبايو كوبية طبعاً أينا نسكو بيننا الصومالي عادي قد دوت ماذا ميدان العكت يسين العكتها يراشكر ما يكسينا إيش كي كسبنا ساكم بخاطر فري مجلس وحولي هل الدلوني ما كهلا لايو علينا يا نفر التابسين هل لو صوروا شورنال هل صاروا ذلك فالحمد لله دلي nimanka inay tay ninka Soomaaliga cadowga aynu haynay oo si daayeen laba tir baa la qoday nimankii waa lagu xiray anigana wali hor fadhiisiyay soo kabarad baad xagga dambe iga taal waana la sawira nimankii la laayay anigoo ku sawiran ayaa joornaalka ku soo baxnay yuniteenishka ICRC jimcada leeyahay waxay doonaysay inay aragto mar quraani xiran oo Soomaalida ah oo dagaal lagu qabtay aad bay doonaysaa markii subaxii joornaalkii ku soo baxay magaaladii ayaa saddex nin heleen ayay ka tageen Itoobiya Kenya galeen yuniteenishka begelyo weydiisteen si aan waddankayga kaga soo go'sanayna wacaynkaas baa leeyahay يلو أن كنت أبعنا هاي شرالك أيوة السوق هذا ينتوريسكي وحوي بعدين مجلس حيل مريم وأكيرين وحيلين على بابور بالو بهايه وبرسل غفارها محمود تقال لقبته وقتها كتواب وحولي يسبع علي هدوب دبار هلا عديو أدو عدانا هلا مدبي ميل لو قلت سكرارا هلا جي يرسو قبو يري قارب الله يقال لي مشي dabeedna xamaan bay geeyeen meelaha rayiisa tibi bay gaabiyeen waxa ii xidhay marba kalar baab ay buufiyaro aan soo baxaa ninkaygii admoysay 8 jirka markii la qabtay 8 jir baa yaa da'yar laga dhigay suud bay soo qaadeen oo ii xidheen waxay geeyeen raas hotel وتضبط دبق تيش بولي هي والله ساري فوق سران تجي سرت وأمريكان على وضي وانت بالي محد دونيسا شو وحي هنا بدل طويل هذا على صيو مجد وحان اللي ورياه دل باتهي لك بك على توجنا يا شعب قوها إلا سيسا كوتيو حبي أنا تصل الله سبحان بيسيو ده عاول توجنا يا ده هذا دار رحمة الله وعلى كتاب قرآن أنا إيه كنا كاد يسيجار إيو وداك دوحي الله وسقط بلايا وما أنت أنا يجو وناك سريد راحوا يقولوا بقدم بدني كعسكري جاء يلتشوا وحموا جاء يروح إليه خمر يضرب بقصة بحناية ومحمد ضرباني دي أنا مسلم بقى هيا دقيقة خمر ضرب ماي أنا هكي استريح كوا هاي أو أي سيام بير يبيت يكريم في تمينة أي قبل يجوا حصالة وبقول البلد هو يقول افتقرب هو بقى قبل يجوا حنقضي نبورن إنك يجي في رشكها يجي رشك سوق لي ما أنت طبعا يبدو ولا صار عيدك يوحي وداك توي مركا كيلو سوور يجي يعني سور كي يوحي كان سكب حياه وحق شذي تريسكي توتاها dabeedna anigoo fadhiya dhulka iyo maadeen Ali hawaariyo bayrahay wala hadwaay markii aan la hadwaay bay u tageen Itoobiya waxay dhinku maanu hadlin way waa hadlaa bali oo maxaa dhacay ula hadwaay yu dhagalay maya dabeedna intaan kacay ya suuligi furay suuligu wuxuu leeyahay waa kan lagu fadhiistay يلا راعيو وشمع الكاشف عن سكفريست الباب كلا وافري نيمان كيابه وهذيك السوري كلا الباب كلا محيرين ميد با افك انتو براكو سو خيداي دو يجي فشي ها هو اريو علي انا فاهم ودي ارفان ياس وحو لك وحب ku biirsaday meesha wala jeedada aan wata markaa waxay ahayd
inaan meesha xun ku noolaan jirayna aan ku miirsanayo meesha wanaagsanna aanan ku keenayn saaxiga taas baa tusaalaha iyagu ahaa nimankii waa is waraysanay waxay yidhaahdeen caliyow waxaana unitenish biladii wataa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa maanta nasiibkaagaa wanaagsan waxaad yeelaysaa ha cabsani migista waa dafiray maxaabiis kaluu hayo maxaad aragta war maxaabiis waa la hayaa baan iyo maxaabiista marka hore intaasaanu hayno dee waxbaa ka noolaa ma garanaysaa bay yidhahdeen meel ay ku xidhayeen markaa magaalada imika dhinac aan ka joogo garan maayaan migista ila hadleen wuxuu nimanka u sheegayaa waa niman Soomaali Itoobiya waxay dhahan Soomaali Itoobiya weeyay yahay nimanku ma ahabaan in walba darajadiisa iyo lambarkiisa iyo ciidankiisa ayaa garanaya habba qabay yidhahdeen bal nimankii qiyaas meeshii aynu ka heli lahayn haddii la geeyo baan dir dhabe waa soo qiyaas karaa meesha dir dhabe geeyeen waardiyeena lama socdo hudheel baan ka soo qadaynay waa soo dultaagay nimankii koob iyo 30 baan ugu tagnay meeshii unitarisku gacanta ilaa bishii 83 bishii labaad gacantayga nagu hayay cuntadayada dharkayaga waxa iyagoo dhan iyaga maamulayay ilaa kala bedelka dhacay dabeed waxa lala wareegay unitariskii halkaasaa dabeedna aanu ku badbaadnay migiste waxaa iska dhaafay markaa unitariska ii soo dirayo ayaa wuxuu igu yidhi cali maanta xusbiga Soomaali SM Somali National Movement iyo SM waxay joogtaa waa garabka bidixda Itoobiya haddaad been mooday waxa hogaaminaya rag caynkaasa maanta adigana nasiib wanaagaaga waxa kula wareegaysaa jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa haddaba adigoo eegaya xusbiga inaga dhaxeeya Afrikaanimada waxaan ka codsanayaa arrinta yar ee lidinku sameeyay jidilka ah inaad u sheegin unitariska intaasaan ka codsanayaa waa yahay baan soo dhaariye buu nin buu keenay af Soomaaliga aan aad u garanayn iyada wuxuu yiri waxa migiste yiri sida uu yiri migiste sidaas oo hadlaya inaan ku dhaarino run mooye inaan ka sheegin been dawladda ayaanu ka doonaynaa oo aan sheegin arrinta gaarka lidinku sameeyay diyaar ma tahay ha kitaabkii buu kala balaqay baaru soo saaray oo inaad sheegin arrinta ma wallahi ba markaan arkay inaan ninku Soomaaliga aad u garanay baan hoos kaliya waxaan no wallahi baan halku ma wallahi ugu yiraan wallahi oran lahaa baan no wallahi ma billahi baabi may billahi baan yiri taasu yar qoonsaday maraasii wallahi ma billahi baan tallahi baan markaasii taasaan muujaan waa tallahu yiri balay beedo naga bad aan jabalo beedo naga bad labada kale aanoo sida ugu hoos galiyay ayaa taas saddexaad oo aan muuji waayo hadaa xitaa soo dhaarto danicadu hayaabaan hayo ilaahay baa u arkaya waa yahay migista sidii baa taana aanu dhikana isku wareysana hadda waxa dhacday intii la baxsaday ee leeyahay kiisku soconayay ayaa leen waxaan ahay nin isasiiyay inaan Soomaaliya tagay ayaan riyooday habeenkii waxaan ku riyaabay inaan wadankii joogo anigoo magaalada Burca tagay anigoo dabeedlay reerkii magaalada ila fadoobe uu yaala anigoo ka tagay oo gaari ka raacay magaaladii baan tagay reerkii baa la tilmaamay anigoo sida baraamkii kiis sokori ku sita madaxa ku sida shadadna la daadinaya ayaa waxaan ku soo baxay islaamta soohay iyo inankaygi oo yar marka yaraado naaska jaqay marka ma jaqay laga daayay adigu yaa soconayay marka aanu isa salaanay bay waxa islaamta igu tiri aakhirad ka timi kama imane bal waran hooyabaan waa nabad bay tiri labada aqal waaweyn way reerkii gabadhiina waa la guursaday ragiina wuxuu ku doobaray magaaladii
waxaan alaabta gabadha u geeyay ana magaaladan ka balgaaraya jeesadkii aan jeestay baan gabadhii arkay oo guriga hor taagan tib iyo mooyo isku haysa sidaas ay eegtay ana waneegaya ruuxantii waan isticlay markii aanu sidaa isku eegnay manaamkii iyo islabood ee wariyo waxaan ogaaday inaan riyoonayo riyadii waxay igu soo noqotay 3 jeer geedo waan fadhiistay qolkii madawaaya ku jiray waxaan ilaahu caawaya ka dhiga qarandi oo dhulka qoda oo hadhow markaad tagto gurigaageena cali ka dhiga baa niyada kay qarandidii aan ku maamka ku arkay waxaan u dhiibay hees fariina waxaanan idhi qarandida balquustay adiga qodaal badan afka qalab ku haysto quusaya ciidii dhulku kala qaboone meel khafiifa dayo ka qabsiyo waxaasii qaflaysaba qumatiga u soco hawle xanqarare qorologoodu sii hoyo waa magaaladaydii qormadaan lahaan jiray quyaruunka soo fuur markaasaan sii bahasha haddaysaan gabadha ugu tagto manaam way sakadii doontaa waa la dardaarman yay qoofin gabadhuye qumatii isku taago qofsidiisa hadalo quyar wuxuu sheego qasnad weeye hadalkuye yuu ka qoqobanine qadita waxaad tidhaahdaa anu qaraan dibaanahay qabuurahaanu hooydaa dadka kala qarsoon baan fariimihiisa qaadaa geesigii ku qabi jiray baa qowl isoo faray qarad kaluu ku nool yahay qabar waxaad bal haysana quyariigu sii dhiib fariintaasaan markaa manaamkaa ku faray qarandida waa tahay adigu waxaa nabadii baa dhacday waxaana la geeyey xamar markii xamarna la geeyey ayaa hooyada ii timi gabadhii oo markaa walaalkay dumaalay ayaa waxay ii soo dirtay cajladii ay ii soo dirtay waxaa ku duuban hees ay markaa yana ii soo duubtay ismaanu arag markaasi ogow anna xamar baan joogaa iyana waxay joogtaa Soomaaliland dabeed wadada laba soo mari karo oo ma soo mari karo ma soo bixi karo hees bay igu soo duubtay waxay tiri hadka maalintii iyo inayow habeenimo hurda kamaladino haasaaweheniyo wadadarankii haasaaweheniyo hadalkaadii tidhi baan weli hibaanayaayo haadka lalaayiyo hawadaan waraysto wuxuu haatifigu yidhi halbowlaha wadnaha iyo halistay wareento hoygii aakhiru tegey hawl yaraan ma seexdo halkaadiigaga tiilba hilbayga go'eeno dadba hadalkii waan dhigay waa jawaabtii waa la dhawciyey dabadeeda cajladii sidii baa gabadhii ugu dhiibay oo ay ugu timi warkii anagaana wali sidaa isku arag ayaa waxa aan joognay xamar xalalaana la geeyey siyaad barre wuxuu yidhi nin waliba waxa uu la darajadiisii ninka ciidankiisa uu ka tirsanaa uu u sarreeyo darajo leeyahay buu hala dul mariyo dhulla hala siiyo meel bay la geeyeen kharaabadaho ay guween bay dhul naga siiyeen halkaa annagoo marayna ayuu siyaad barre wadi ku soo noqonayaa buu yidhi aanu nagu soo noqon ragga iyagii waqooyi ku dhashay waxaanu u nimi dadkii waa la laayay iyo dalkii waa la gooyay mooyaane waxaanu garannaba inaanu xabar ku arki weynin waa ragaygii waqooyi ku dhashay halkaa annaga oo ay arrintii noo marayso ayaa waxaanu taarigaraynay niman mareexaanana loo diray dibadda iyo caafimaadba annagiina aan cidina eegin ayaanu nidhi war aan mudaharaad samayno si caalamku inoo ogaado nimankii ina keenay meesha inooga qaadeen mudaharaad baanu samaynay xamarba waa la ogaa BBC baa ka sii daayay caalamku waa dhageysay waa ogyahay wanaga mudaharaadka ka soo bilowday markii aanu maraynay halkaa aswel la yiraahdo ninka la aswel ayaa ku sawiran yahay ayaa waxaan ugu soo baxay ciidan dhibo ah dabeedna laba qori baa raggii ila socday ka furteen
markiiba inta ka laadeen ka qaadeen afweyne fooniya ka hadlay wuxuu yidhi nimanka lama dhaawici karo lamana dili karo masaalixuna lagu tuujo halkaas waxaa noo yimi naag wariye ah what is the problem waa maxay dhibaatada tagani problem too much I'm prisoner of 1977 captured Ethiopia it's not country my wife my children my baby waxaan nahay maxaabiistii la qatay dalkii 77kii caruurtoodii naagahoodiina aan arag una dhashay gobolada waqooyi ayaanuna markiiba naagtii wariyahay waa sii daysay waa gaas maas baa nala ku tuuray waana la qabta subti baa nala ka xuqaayay caano iyo nalsiya maraq markii subtiina ka kala ciidamada waxa istay gabi ayaa wuxuu ugu yiri istaag diinta aabaha waxa ku sameeyay sagoo og inaan markaa ninkii warbixinta dhiibay aan ahay waxa tay xabashi soo bartay af Soomaaliga nin Soomaaliyo dalka la dagaalama la arag laakiin sirta dawladda nin dabada geeyay adiga buu lama arag xabashada ku soo qaldaatay buu yiri imika saxabad baa ku qoran ku gulfanayna gabiyo waxaan yiri kalbada iga dhigayso xabashi baa tay waxaan ka idhi marka anigu Soomaaliga ahaana dalka baa joogay Soomaali baa lahay ila reekaliyo ahay ما دام ما أنت هاي إن إثيوبيا هاي إن إثيوبيا يقول شكتنا ونصيب وحنا هاي نين بليت سوق تابر كهري ورفع إسحاق وعن كوجو دري كوبي تبصرون وحدا صومالي نمو أو لقوا قبتي الدجال نكوا الريبان أنت صوني إنه أنا لحدنا أنت صام كصبحنا عشان كذا سكيي إلى هاي وقت يديريو isaga og cirka hadaleysan ugu soo ridna calaw yada ku yaal yaa ku raacsan buu yiri shamba gacmaha taagay kala isaaqa lixdeedii nin baan la qaaday jildil iyo hadii la ka dhigo biyaha badda oo meel ku soo neefo birkad ay nagu nagariyeen ya jildil bay nagu sameeyeen inama reer Soomaaliyeena oo qabtu ugu dhacday xagga yaa balqayna markii wala kala soocay bixnino isaaqa la tagay waxay ku dhool yihiin war lagama hayo sabaxii bay mudaharada soo sameeyaan boor soo qaatay afweyne wuxuu siili 30 kilomitir baa ku gubanaya nimankii ka hortagay wuxuu yiri jooga waxa la yiri maxay ku dhacday nimanka caynkaas ah in gaar loo la baxo haddii la keenay safaradaanu galeynaa ii kale bado afweyne waa loo geeyay afweyne wuxuu yiri maxaa wacay inta xabashida wadii ma jeclaa wadii soo dhaweeyay dalkii baan idin siistay 3500 waan idinku bedeshay intii aan wax idin qaban lahaayeen ku soo socday maxaa wacay inaad mudaharaad samaysaan waan wali barow saddex xaalo nooga bedel nooga jawaab marka hore lixlayadaan isaaq baan mudaharaadka aan ku wada soconay inta yadii maxaabiista ahay waxa anaga gaar loo ku dilay aan loo ku qabsaday marka hore nooga jawaab talabaad yiri isku intuu aqoonsaday tabciyada qurba ka dhaxaysa warbixinta weydii keenaysi raga kale jawaabto oo imanaysi anagu baanaan numa imanay ragayga waqooyi kala baarbaanu jeelkiiba ku kala hayna yana nooga jawaab midda xiga ta هذا نقد دري عروض هذه ريال هايجي نقول بدي أرد مركز سود جايرو بكذا كفر حامو دوري ما هاي إنه يعني لو جت شو ما يجي كده أكبر نقول يعني هاي كأفراد أنا وعدا نقرنا بوين وما ده كم وده كانوا كذا تجنين ده أقوم أنا نيمان وحنا قرنا ما هاي نه وشهر كي يجي أنا حوم كذا رجني يلا أنا راسي أدوق وحولي ده كي قفوا البحر كي شعرابنا habka ugu bedelay warbaahinta idinka sii deelinaa in aanu timaadeen wadakaana yar kala go'an siyaasad raali ku ahaan sameey haddaba marka xamar ka soo baxnay waxaan imi reerkii waxaan ku soo horeeyay gurigii aabahay oo bah yar iyo geel joogan oo aan ugu ajir marka bahda yar guurkeeda iyo reerka dambe dabeed waxaan u sheegay markaan is wareysanay reerku wuxuu yaalay حق اللعب جميل حفتها أو يضيّه كبدي يدحضر ولا كيد بالي إن أنا بتوه هاي بارودي هاي تيرك كلا يقول السلام بانيلي أنت لعبه لك تجيب يقول السلام أي بعض غير دابد وحده تيرك هو
nabad qabay waana u sheegay waana imanayaa buu yidhi idinku soo yaacina waxa dhacday markii aan tagnay oo aanu gaari kaga degnay magaalada ciidanka u dambeeyay SM joogeen laamiga waa ka talaabsanaayeen ayaa nin adeerkaya habeenkii ku soo baxnay neef buu noo qalay markii ninkii aan adeerkaya habeenkii la sooriyo neef noo qalay ayaanu laamigii ka talawnay ayaanu guriga ku soo baxnay dabada loo soo baxay inta hadalkayga la maqlay dadkii markii aanu isa salaanay oo la taagan yahay يا هويدي waxay tiri inan markaa aan dhalay oo naaska shaqaysay bal caruurta ka garo inantaadii way hooyaday ugu tiri dabeed waxa hadalay taa ahayn garan maayo dabeed wallahi jilba urawa ka gartay bay tiri markii inta ay tiri inantii intay qaylisay oo sastay iyay aabe markaa saru qaaday bay tii 13 sanana waxaan ahaa baan ogonaha ilaa waa kugu mahad hadda aabahay keentay leeymana yiraahdo haweeye ayaan baa la yiraahdaa bayti aabadii ay lahayd inanta sarwahayay ya hooyada duusha naftii waa ka boodi wadul markaa maan dhigin habashaan u dareer way ugu dareer habeenkii waxaan kala cunayo aan halkii la fadhiyo inantii lahayd ayaan baa la yiraahdaa yaati aabow 13 sano waxaan ahaa aabalaan markaan aabe helena waan hooyo waay oo adduunka waa markaan 3 jeer baan naxayo waa markii ay u darayd bay ka mid ahayd kelmadaas inantii waxaan ku wiri ina yahay waqtiga baas anigu uu yaqo waayahani haystee wixii waa sheegiyo waxyaalaha adduunkuba waa wax soo jiraya waxanay aabe adna waay arag noqo iga daa laba calolowga صبحي كصدح ها يا وحى تيمي قابلي سرو إيجا وينادان وراها هين إينا كيدو إلى سعلي وذيبا حلوة صوص عتامر كيلا يدي يا نسيتنا ويكبودي إلا نيجيريا هابان هاي تبي الواكور تجي على ولا شيء حلوة جيني ولا سلام ولا أي ردوش ما يديبن لكن قريب جادي الآن كون ترف معها في وقت دعطي مركبة ينديه iyo sibay noqoto markaas reerkii ka dhaqaatay dibadda waxaan qabtay reerkii kale ee aanan isqoon odayga baan ku reerkii waxna soo dhintay waxna halis yahay baan ka imi bal anigu reerkan dambe la joogayay inta dunuusi noqonayso adigu reerka iyo xagga qabo sidii buu ku soo qabtay odayga dibadda reerkii taasina waa dhacdadii dambe ee markii aan imi ila kulantay waa yahay waxa dhacday hadaba waxa arintii halka iska barto markii dalka la soo galay ayaa waxaanu kulanay madaxweynaha adala ka dhigo lahaa naxariistay maxamed ibraahim cigaal waxaan ugu tagay madaxtooyada waxaan madaxweyne waan ku imi waynaga isku nimi anigu waxba ka dooni maayo kale kursigan aad ku fadhido baan xaq u leeyahay haddii aanu yeesho ma iga garbareynay sabab ku haystaa oo qasna waxay nin intay weydiiyay arkayo dhoori laakiin nin madaxnimada igu haystaa ba arag waxaan idhi li xaalo oo ii soo baray Soomaalinimo haddii ku soo marin ana xaq u leh waxa igu kulmay cadow ku qabay hal maqdil lagaala had koobkiyo bawda ka jab inda garagdi calwa magacaagiyo muugtaadaba lawa nolosha lagu dhaxal lixdaas ila kulmay haddii lixdaas ku kulmay kursiga dacana xaq u leh haddii Soomaali soo ka qarqaadanayso oo qoslay wixii bal ana ii qabo soo bilaaya baan isku doontay isaga ba dhimi soo bartay oo iga daraa maxamed ibraahim ba ilaa naxariistay adow ku qabay abada wati la qabtay yaa fooyay qabtay magacaagiyo muugtaada wala way soo bartay wi oo bela ku noolahay ba la waay tii saddex nolosha lagu dhaxal naaftiiba wala gursada waa adawid wanaada dhaxlad waa saddex baalad waa roga halka markuu barayaadhay kugu haysto war wallahi inaanu ku waasano bilaa ku haysan bigiirsi dabad lacag biisiyay wixii daramay dibadda oo yiri boorto dhakhtar imika waxaan salaamayaa dhamaan marka hore Soomaalida oo dhamaan waa salaamaya xaaskayga caruurtayda madaxdayda madaxweynaha iyo dawladda oo dhan waxaan leeyahay unitariska gaar ahaan ICRC oo joogta Jirifa waxaan ogaa
mister bolis ninka la yidhaho wakiil naga ahaa waxaan markaa leeyahay si wanaagsan in laga caawiyo dalka iyo dabaddaba wixii jooga ninka dhibaatadaas waddanka u soo martay baan ahay taasana aad iyo aad aan u codsanaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage naacaw qabow iyo nimca iyo barwaaqiyo